dawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa Maanta TV waxaa halkan marti noogu ah gudoomiye Maxamed Bilam Muuse oo kamid ah madaxda sare ee xisbiga Ilays horena uu ahaa gudoomiye xisbiga u heeli dadka gudoomiye ku soo dhawo Maanta TV aad baad u mahadsan tahay waana dhawahay waana ku mahadsan tihiin dadaalka Maanta TV oo ugu jiro in bulshada Soomaaliyeed uu soo bandhigo hawlaha muhiimka ah ee horyaala qarankan dadkan aad baan ma aragtay idinka mahad celinaya soo dhawayntaad noo fidisan gudoomiye waxa sharxaad ka bixisa qooban xisbiga Ilays oo aad kamid tahay madaxda ugu sareysa xisbigaasi ujeedooyinka loo asaasay aad u mahadsan tahay inta anu gudagal waxaan rabaa inaan ma aragtay wax yar ka iraahdo saacad ka hor qaraxi ka dhacay wasaaradda shaqadii shaqaalaha waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun dhamaan dadka ay wax ka soo gaareen sida hadda aan ogsoonahay wali ma aragtay wararku ay soo tarayaan war sax ma hayno laakiin waxaan fahamsanahay in ma aragtay ay meeshaas mashaqo ay ka dhacday shacbi wax ku soo gaareen shaqaale dawladda wax ku soo gaareen waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun waxaad moodaa qaraxyada ma aragtay magaalada Muqdisho ka dhacay inay soo bateen haddaan u soo laabto su'aashaadii ahayd ma aragtay xisbiga hore aan uga tirsanaa xisbiga u heeli dadka waan gudoomiyihiis aan ahay iyo xisbiga haddaan ma aragtay aan la biirnay oo la midownay xisbiga Ilays xisbiga u heeli dadka ujeedka aan u asaasnay wuxuu ahaa in ma aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed la siiyo fursad ay uga mid noqdaan siyaasadda dalka waxaan fahamsanahay kontonkii sano ugu dambeysay shacabka Soomaaliyeed oo ah milkiilayaasha dalkan wali ma aragtay lagama qayb gelin siyaasadda dalka waxay ahaayeen ma aragtay mar walba banaanka jooga siyaasadda waxay ahaayeen ma aragtay dad daawadayaal waxay ahaayeen dad aan ma aragtay cod lahayn dad waxay ahaayeen maqaam lahayn 20 sano ma aragtay wadanku xukun kala taliso ku jiray 30 sano ugu dambeysana ma aragtay daala dhacay wuxuu ku jira ma aragtay odayaal codadkii dhalinyarada Soomaaliyeed iibsanayso ku jiray marka ujeedka aan u asaasnaa wuxuu ahaa in dhalinyarada Soomaaliyeed la fahansiiyo ogaadaan in iyagu codkooda uu yahay midka kaliya ee ma aragtay isbedelka keeni kara ayagana ay yihiin dadka maanta loo baahan yahay 75% waa dhalinyaro dalkan iyagu u baahan yahay codkiina iyaga ahaayeen marka diila yiri waxa loo gudbayaa nidaam dimuqraadiya oo dadku ay codkooda ku dhiibanayaan kuna soo dooranayaan cidii ay rabto anaga waxa noo soo baxday oo aan aragnay fursad ah in dhalinyaradu ay soo sharixi karto iyagana is dooran karaan hadii 75% ay codkii ay haystaan in madaxda soo socoto mustaqbalka in 80% ugu yaraan inay noqoto dhalinyaro taasaan ugu kaliftay in xisbiga u heeli dadka aynu asaasno qodobka ah ma aragtay isku biirista isku biirna xisbiga Ilays waxaad fahansantahay waxa diiwaan gashan xisbiga kor u dhaafay 40 xisbi wali way soo diiwaan galnay wali way soo socdaan ujeedka ma aragtay xisbiyada ay loogu ogolaado in diiwaan gelintu ay noqoto mid furna waxay tahay in xisbiyadu ma aragtay iyaga si nidaamiya iyaga ma aragtay isugu biiraan kuwi isku fikira kuwi isku aragtiya codka isku darsadaan shacabka isku darsadaan maaliyadda isku darsadaan marka anagu ma aragtay ka duulayna fikirkeennii guud ee ahaay aragtidii dheere ee aynu lahayn oo ahayd ma aragtay in wadankan dib loogu celiyo dhalinyaradii iska lahayd milkiilayaasha iska lahay ayaa waxaa noo soo baxday in lagama maarmaan ay tahay in ma aragtay xisbi aynu isleenahay isku aragti baa tihiin isku fikir baa tihiin isku meel baad u socotaan in ma aragtay aynu la midowno si markaas aynu xoog isugu darsano dhaqaalaha isugu darsano shacbiyada isugu darsano maskaxda isugu darsano waxaan kaloo hadda rajeynaa insha Allah taala xisbiye kale ma aragtay iyagana xisbiyada diiwaan gashan inay qayb ka noqon doonaan xisbiga Ilays inuu soo biiri doonaan waxa u soconaa waxay tahay Soomaaliya hala waxa loo socdaa waxay tahay ma aragtay Soomaaliya ay hogaaminayaan dhalinyaradu waa ma aragtay waa dad qalbigooda nadiif yahay waa dad ka maran laaluushka ma aragtay ragaadiyay ma aragtay siyaasadihii kala duwan ee dalka soo marayay marka anaga waxaan rabnaa fikirkaas inaynu riixno waxaan rabaa dhalinyarada maanta dhageysanaysa inaan ugu baaqo inay qayb ka noqdaan siyaasadda ma aragtay cusub ee Soomaaliya ay galayso oo aysan gacmaha laaban oo ay joojiyaan ma aragtay in sidii hore ay ahaayeen dad ma aragtay banaanka jooga shacabka inuu qaabilsanaay in laakiin maanta iyaga gudihii ay ma aragtay soo galaan qaybna ka noqdaan isbedelka iyo siyaasadda cusub ee Soomaaliya ku soo kororto oo ah in qof walba codkiisa uu ku soo doorto mas'uulka isaga uu rabo inuu dalkan maamulo gudoomiye muhiimadda inta la eegay xisbiyada Soomaaliya u leeyihiin marka loo eego duruufaha xooggan ee ku gadaaman
aada u mahadsan tahay xisbiyadu sida aad sheegtay waxaa ku gadaaman oo ku wareegsan duruufo aada u adag waana mid aan kuleeyahay xisbiyada hadda waxaa loo ogolaaday in diiwaangelintoodu ay noqoto mid furan laakiin waxaa dhiman diiwaangelinta rasmiga ahayd diiwaangelinta rasmiga ahayd marka waxay adkeynaysaa in xisbiyadu badankooda u gudbaan sababta caqabado xoog la ku wareegsan culaysyo badanaa saaran culaysyo maaliyadeeda saaran culaysyo waxaa saaran maaragtay dhinacii amnigaa saaran marka culeysyada xisbiyada saaran sida aad sheegtay aad bay u culus yihiin aad bay u adag yihiin wayna adag tahay xisbiyada ma aragtay ka soo bixi kara oo u gudbi kara qaybta labaad oo ah ma aragtay xisbiga inuu noqdo xisbi diiwaan gashan oo rasmiya sababtoo ah haddii aad u baahan tahay maanta inaad xisbi rasmiya noqoto shuruudaha ugu horeeya waxaa ka mid ah in 10,000 oo xubnood ay ku diiwaan gashan yihiin in 9 gobol aad xafiisyo aad ku leedahay inaad la timaado siyaasad dheelitiran oo dhammaystiran ay ka muuqdaan dhammaan ma aragtay qaybaha kala duwan ee bulshada ay dumarku ka muuqdaan dhalinyaradu ay ka muuqdaan dadka baahiyaha gaarka qaba ay ka muuqdaan marka waxaan is leenahay shuruudaha la hordhigay oo ah ma aragtay in xisbigu uu noqdo xisbi la wada leeyahay caqabadaha ku ma aragtay ku wareegsan waxay yihiin caqabado aad u culus xisbiyada ma aragtay dhalinyarada ay qaybta ka yihiin baana guuleysan doona oo shuruudahaas adag ka gudbi doona dhalinyaradu xisbiyada aysan garab taagin anaga waxaan qabnaa inay guushooda ma aragtay aysan noqon doonin ma aragtay mid sahlan laakiin xisbiyada ay dhalinyaradu ay ma aragtay qaybta ay ka yihiin ay garab istaagayaan ay ma aragtay calanka ay u sidaan waxaan qabnaa inuu yahay xisbiyada guuleysan doona waana midda kaliifta in maanta anagoo xisbiga u helay dadkaaga markii aynu ahayn anagoo xisbi dhalinyaro ah xubno kula dhammaan ma aragtay gobolada dalka in aan xoogaas ma aragtay aan ula tagno xisbi kale kula midowno ujeedkan inuu yahay in aynu suurto gelino inay noqon xisbiga ugu horeeya ee rasmi noqda waxaan insha Allah tacaala rabaa fursadan uga faa'iideystaan ugu baaqa xisbiyada kale inay qayb ka noqdaan midowgan quruxda badan aynu wadno si ay markaas loo helo Soomaaliya hala dhalinyaraduna ay yihiin ma aragtay hoggaanka cusub ee siyaasadda cusub ee Soomaaliya insha Allah tacaala aynu doonayno inay noo bilaabato 18 bil kadib 2020 insha Allah tacaala waxaan ogsoonahay inay jiraan shuruuc qabiya ah oo la xiriira dhinaca xisbiyada badan maxaa hor taagan baad isleedahay in la dhameystiro shuruucdaas aad u mahadsan tahay I think waxaan u maleynaa inaad ka dhawaajinayso in weli aan la ansixin sharcigii doorashooyinka oo weli hor yaala golaha wasiirada sharciga doorashooyinkana waa usub dhaxaadka in doorasho ay dhacdo sharciga doorashooyinka haduusan ansaxsanayn haddii uusan baarlamaanka uusan soo marin doorasho ma dhici karto sharciga doorashooyinka ugu yaraan hadda xafiiska ra'iisul wasaaraha muddo hor yaala anaga ma fahmi karno dhowr mar aan ka dhawaajinay guddiga doorashooyinka aan kala hadalnay in ma aragtay la fududeeyo xisbiyada dhowr mar bay isku tageen fikirkooda ay ka dhiibteen laakiin anaga ma garan karno culayska iyo waxa kalifaya in ma aragtay sharciga doorashooyinka lagu dhaganaado sharciyo kala jiro iyagan u baahan ma aragtay in la meel mariyo laakiin hadda sharciga ugu muhiimsan ee hor yaala wuxuu yahay sharciga doorashooyinka isagii xisbiyada dhinacooda ka soo dhamaaday laakiin wali wuxuu hor yaala oo ku dhagan ma aragtay xafiiska ra'iisul wasaaraha haddaad xasuusato madaxweynaha shirka ugu dambeeyay uu shir gudoominay golaha wasiirada waxa uu ku cadaadiyay in sharciga doorashooyinka loo gudbiyo baarlamaanka laakiin waxaad moodaa in xukuumaddu ay wali ku dhagan tahay waxyaabaha aan maqlayna waxaa kamid ah in xukuumaddu ay damacsan tahay in xisbiyada gooni ay ku dhawaaqdo ayna rabto inay isku aadiso ku dhawaaqista ay ku dhawaaqayaan xisbigooda iyo gudbinta sharciga doorashooyinka haddii fikirkaas suuqa uu yahay fikir saxsan waxaan leenahay tii loo baahnay ma ahan waa ka digaynaa waxaan leenahay ma arag waqtiga aad buu yar yahay sharciga doorashooyinka ha loo gudbiyo baarlamaanka si dadkan iyo dalkan ay u helaan wixii ma aragtay 60 sano ka maqnay oo ahay in shacabka Soomaaliyeed loo ogolaado markii ugu horeysay in ay soo doortaan madaxdooda doorashadii ugu dambeysay Soomaaliya ka dhacday waxay dhacday 69kii dhacday bishii 3aad muddo laga joogaa waxaan rabnaa in wixii aan loo arag wax shakhsiya in sharciga doorashooyinka waa wax dhammaan bulshada Soomaaliyeed ay qayb ka tahay oo kulligood taabanaya in xukuumadda aysan u arag wax iyada ay leedahay ama aysan isdhihin ma aragtay anaga markii aan soo diyaar garowno unaan gudbinaynaa laakiin sida aad sheegtay sharciga doorashooyinka wali ma ansaxsana oo wasiirada wali ku dhagan baarlamaanka la geeyaa u dhiman la ansixiyo si ma aragtay markaas loogu diyaar garoobo howlihii kale ma aragtay doorashada gudoomiye markaan aynu dhanka amniga ee magaalada Muqdisho maalin ugu dambeeyay waxa ku sii kordhayay qaraxyada ee ka dhacay dawladana waxay sheegtay in aad u adkaysay ammaanka isgoos walba ay ciidan dhigtay sidee xal loogu heli karaa dhanka amniga
iyadoona shacabka ku sugan caasimadda loo dhimrinayo aad u mahadsan tahay horta qarax kii hadda dhacay saacad ka hor had ugu dambeeyay waxaad moodaa bisha hadda aynu ku jirno bishii saddexaad in qaraxyada magaalada ka dhacay ay kor u dhaafayaan ilaa 8 qarax iyadoo weliba aan la xisaabinayn qaraxyada dadka baabuurta loogu xiraayo marka waxaad moodaa in wixii ay noqdeen sidii tusbax furmay oo kale annaga hore uga hadalnay xisbiyadu bayaan cadi ka soo saareen sida iyaga ugu muuqato in ammaanka dalka gacanta loogu qaban karo sidaad fahansantahay maamulka talada hay markii uu yimid waxyaabaha uu soo bandhigaa waxay ka mid ahayd in 2 sano gudihiis lagu ammaanka guud ee dalka in gacan lagu qaban doono waxaad moodaa intii lagu fashilmay hadda sanadkii saddexaad hadda u bilowday maamulka talada haya waxaan amaankii laga ma qaban dalkii lama xoreyn guud ahaan anaga waxaan door mar ma aragtaan soo jeedin soo bandhignay hadii la rabo ammaanka wax laga qabto ammaanka muqdisho ma ahan muqdisho gobolka ku agoreegsan waxaan fahansanahay meelaha dhibaatada ay ka imaanaysa inay magaalada banaankeeda waxaan qabnaa in hadii la rabo in wadankan si dhab ammaankiisa gacanta loogu dhigo in magaalada muqdisho laga baxo inta magaalada muqdisho ma aragtay la maciin bidaayo oo lagu soo aruurayo oo dhufays ay noqonayso suurtagal ma in amniga gacanta lagu dhigo waxaan qabnaa in magaalada banaanka looga baxo furumaha dagaalka la aado cid la dagaalayo loo tago xurumahooda loogu tago shacabkuna markaas waxay la imaan lahaayeen yidadiile ay ku garab istaagayaan maamulkooda laakiin 2 sano wax dagaal oo la qaaday ma jirto 2 sano ma aragtay tallaabo dhinaca amniga loo qaaday ma jirto waxaad moodaa in culayskii oo dhan magaalada muqdisho la isugu keenay mid kale aragna hoosta ka xariiqa waxay tahay hadaad fiiriso qaraxidii dhacay 2 sano ugu dambeeyay dhammaan magaalada muqdisho wadooyinkeeda 95% way ay go'anta 90% shacabku ma isticmaala shanta soo hartayna waa shan maalin walba ma aragtay 4 maalmood mar la xiraayo qaraxyadana wali ma aysan istaagin xaafadihii baa xiran xaafad u gudbi karta ma lahan meel walba dhagax bay ma aragtay ku go'an qaraxina ma istaagay marka meeshaas waxa kaaga cad in hadii lagu guul dareystay in magaaladii oo dhan bandoon ay ku jirto qaraxina wali uu sii socdo waxa cad ma aragtay in loo baahan in isbedel dhinaca ma aragtay istaraatiijiyada la yimaado in saraakiil sax la qorto in ma aragtay ciidankii la mideeyo in ma aragtay maamulka talada iyo hoggaanka sare dalka ay ka go'an tahay in ammaanka si dhaba oo qalbi saliima gacanta loogu dhigo laakiin hadii wuxuu ay iska yihiin ma aragtay igu sawir iyo aniga dhahay waxaad moodaa in ma aragtay foolxumada ayna ku jirno inay sii socon doonto waxaana suurtagal ah sida hadda wax ku socdaan hadii wax ku sii socdaan waxa suurtagal ah in dhammaan magaalada muqdisho ay gacanta ay ka baxday marka anaga waa ka digeena waxaan leenahay dawladdu hala timaado fikir cusub hala timaado aragti cusub ee ku wajahaysa ammaanka sida hadda wax ku socdaan kuma sii socon karaan ciidanka jooga furmaha waa ay ka soo baxeen iyagoo ka caawinaya mushaar la'aan madaxda ugu sarreysa dawladda waxay sheegeen inay ciidanka mushaarka siiyeen ay ku socoto diiwaan gelin markaad isbarbardhig ku sameeyso maxaa ku soo baxay horta waxaan rabaa inaan marka hore aan u mahad celiyo ciidanka furmaha ka soo baxay dhibaatada xoog lana sheeganay oo ugu weyntaa mushaar la'aan in ma aragtay xaasaskoodii guriyihii banaanka looga saaray in caruurtoodii ma aragtay guriyihii banaanka looga saaray waxaan rabaa inaan ka raali geliyo hadalkii xanafta lahaa ee ka tabanayeen ma aragtay xukuumadda oo ahay ma aragtay inay ciidamo beeleed ciidanku qaranka Soomaaliyeed meel walba uu joogo ciidan Soomaaliyeed waa ciidan u istaagay dalkan iyo dadkan ama ku sugnaado ma aragtay Hiiraan ama ku sugnaado shabeellada hoose ama ku sugnaado ma aragtay Baydhabo ciidanku waa ciidan qaran marka anaga waxaan qabnaa in laga qurxoonaay in ciidanku ma aragtay loo muujiyo inay yihiin ciidan beeleed oo aad moodo ma aragtay xanaf xoog leh ee ciidanka ay ku reebtay ciidanka waligiisu ma aragtay laga yaabo marka qaar mushaaraadku ka soo daahi jiray laakiin qalbiga loo dhisi jiray waxyaabaha ugu weyn ciidanka daawada ah waxay tahay Soomaaliya kaliya maan caalamka in ciidanka moralka loo dhiso in ciidanka ma aragtay niyada loo dhiso in ciidanka loo muujiyo in dhammaan dawladda kaliya maan in shacabkii guud ee Soomaaliyeed inuu ciidankiisu inuu garab taagan yahay marka anaga waxaan qabnaa in morality-gaas la dhisaayo niyadaas la dhisaayo in ma aragtay la xoojiyo xanaftana laga daay hada shalay tirada masaajidku ka hadlayay salaadii jimcaha kadib waxaad moodaa ma aragtay in uga sii daray hadalada ma aragtay
la isku maaragtay weydaarsanay dhinaca miidiyaha anaga waxaan qabnaa wax walba ciidan quseeya oo ma baahnaba maaragtay inay noqoto wax warbaahinta la isku weydaarsado ciidankii gadooday ee ka soo baxay furumaha ciidan Soomaaliyeed ahaayeen shaki kuma jiro waxaad ku dareemaysaa ciidankaas qalabka ay wataan hubka ay wataan labiska ay wataan hadii aysan diiwaan gashan su'aasha meesha imaanaysa waxay tahay war ciidankan yaasi waxaan qalaba yaasi waxaan huba ma hubka ma beesha lahayd su'aalaha ma aragto is soo tarayaan waxa kale oo hoosta ka xariiqo ciidankii beledweyne markay isugu tageen Hiilweyne waxa u tagay oo loo diray wasiiro ku beela ishalena dawladdu waxay leedahay anaga nooma diiwaan gashana mana aqoonsan marka su'aasha meesha imaanaysa waxay tahay hadii ciidanku ahay ciidan qaran maxaa keenay in wixii la sii qabiileeyo ma aragta loo dir wasiirka gaashaandhigga looma dirin ku xigeenkiisa looma dirin waxa la diray ma aragta niman wasiiro ah oo ciidankii soo gadooday ku beela marka waxaad moodaa in dawladdu mar walba ma aragta laabada ay qaadaysa ay uga sii dareyso xaaladda dhabta ah meesha taalana waxaan qabnaa ciidanka mushaharaadkooda la siiyo adoo mushaharaadkooda siinay ay diiwaangelintan la wadi karaan diiwaangelinta 2 sano ka hor la bilaabay ciidankan hadda dawladdu waxay tiri maba gaarsiisana 15,000 oo ciidan 15,000 oo ciidan anaga waxaan qabnaa in lagu soo gabagabeyn karay muddo sanada marka ciidanka mushaharaadkooda hala siiyo diiwaangelintan ha socoto dawladdu waxay sheegtay in ciidamada dawladdu diiwaangashanay 16,000 yihiin sidoo kale waxay sheegtay inay jiraan ciidamada u diiwaangashanay oo gaaray 9,000 taliya ciidanka oo ka hadlay arrinkaasna wuxuu sheegay in haddii ciidamadan ay sii wadaan howlaha ay wadaan gododka in la kala diri doono arrinkaas muxuu sababi karaa anaga waa ka digeynaa waxaad moodaa in sidii hadda aan ka dhawaajinay in xaaladda looga sii daraayo 9,000 oo ciidan oo hubeysan haddii la kala diro xagee u socdaan waay ma hawlo kale oo ma aragtay la damacsan yahay rab in dalkan dadkan lagu baabi'iyay dawladdu ma aragtay niyada ku haysaa 9,000 oo ciidan oo hubeysan oo hubka aan arkeyna wata haddii la kala diro xagee loo socdaan anaga waxaan qabnaa in waxa talaabooyinka la qaadayo dhanba ay tahay talaabooyin looga dan leeyahay in doorashada 2020ka ma aragtay lagu fashiliyo anaga waxaan qabnaa inuu yahay waxaan wax qorsheysan ujeedkana uu yahay in xukunka lagu dheereysto 9,000 oo ciidan oo ma aragto hubka aad aragtay leh shacabka ma aqbali karo mana yeeli karo in la yiraahdo waa la kala diray ujeedada guracana laga leeyahay anaga aan qabnaa ujeedkaas oo ah in xukunka lagu dheereysto mana aqbali karno dawladdan marka ay dawladii hore maxay kaga duwan tahay waxay uga duwan tahay oo koow ah dawladdan sideeda markii ay soo galayso waxay ka soo gashay dhinaca Facebook-ga waxa ugu weyn xooga ay saarto juhdiga ku bixiso ay maaliyada ku bixisan waa Facebook-ga marka waxay uga duwan tahay dhihin karnaa koow Facebook-ga laba barnaamijkii ugu sawir waxaad moodaa inuu hadda ma aragtay isaga iska fashilmay uusan culays badan uusan jirin laakiin 1 iyo 2 iyo 3 hadda waxay tahay waa Facebook iyo dhinaca propagandada iyo dhinaca ma aragtay in wixii qaldan lagu adkaysto in ma aragtay talaabo walba ay qaadayso ma aragtay fashil ku dhamaado taasna waxyaabahan ka digayna waa 2 sanadii ugu dambeysay ay soo dhamaatay wax qabso ma jirin sharciyad baarlamaanka la ansixiyay ma jirin ciidan ma aragtay diiwaangelinta loo dhameeyay ma jirin ciidankii isku dhafka ah la ballan qaaday ma suurta gelin marka waxaad moodaa maaliyadii waa ogeed guddiga maaliyadda baarlamaanka dawadayaal waxaan halkaas ku soo gabagabeynaa waraysi gaar ah oo aynu la lahayn amaba aan la yeelanaynay maxamed bila muuse oo horey u ahaa gudoomiyaha xisbiga u heeli dadkaaga haatan ah madaxda ugu sareysa ee xisbiga Ilays